heeskani waxaa loogu talagalay geesiga East Africa Faarax Macalin Dawaara waa ereydii abwaan Cabdirashiid Caaqilka Dhagajile laxanka iyo weliba codku waa Elka Cabse Qays muusigii Bulshaawi studio Cajami Nairobi قامي داعدو وفيري يا شعب كيو هل يقرن باتهو تدقاقا كو هوي قامي داعدو وفيري يا شعب كيو هل يقرن باتهو تدقاقا كو هوي bulshadu kuma huri karto ubal reer Gaarisba dhamaan ku helano ogow horumarkaaga suga bulshadu kuma huri karto ubal reer Gaarisba dhamaan ku helano ogow horumarkaaga suga جودانا تنربنا حلقودو بتنربنا إنا نهكان ربنا هرمود نبو تنربنا أبدا ساري أنتقني مروح الكفارحو أبدا ساري أنتقني مروح الكفارحو جودانا تنربنا الكود هو تنربنا إنا نهكان ربنا هرمود نبو تنربنا أبدا ساري أنتقني مروح الكفارحو أبدا ساري أنتقني مروح الكفارحو أنانيو دولة نمو عدا دلك كوهاقي كارو مسؤول هاينا تغو كنتي هاقال أنغو أنانيو دولة نمو عدا دلك كوهاقي كارو مسؤول هاينا تغو كنتي هاقال أنغو عراتي ماتدو عدكات كيشتي حقري هيان قري قاجادو ألقى من أبو فارحو عراتي ماتدو عدكات كيشتي حقري هيان قري قاجادو ألقى من أبو فارحو جودانا تنربنا حلقودو بتنربنا إنا نهكان ربنا هرمود نبو تنربنا أبدا ساري أنتقني مروح الكفارحو أبدا ساري أنتقني مروح الكفارحو جودانا تنربنا الكود هو تنربنا
inaan nahagtaan rabnaa hormuud noqotaan rabnaa habada sare aan tagne maruu xilka faaraxo hawada sare aan tagne maruu xilka faaraxo guushoodana tan rabnaa xilkooduba tan rabnaa inaan nahagtaan rabnaa hormuud noqotaan rabnaa habada sare aan tagne maruu السلام عليكم يا اهل السلام عليكم يا اهل فارح معلم وابي فارح وابي فارح معلم وابي عمر عبد الحسن وابي ما ترى دغالي وادوا فرحت دغالي ما انت لما كوبي كرسمو ما انت وحا سعودا يا سعودا ما انت يا انت شيء مهجع ما كلا جدا ما كسر سيارة لواء أفريقيا يا سلام أنت وركين وريم مكان يا أهلي xilka faaraxo habada sare aan tagne maruu xilka faaraxo warka si fiican dhagaysta maanta waxaa jirta waxaa la rabaa maanta dhagahley warka inay dhagaa si fiican u furaan soo maho ree dhagahley maanta warka inay si fiican u dhagaystaan sooma la rabo waxaa rabaa marti kalena la socotee inayni salaamtaan ma maqashiin martidaasaani salaam waxaan ka bilaabi jeemanka awliyaa baan ka bilaabi jeemanka soomaalidaan ka bilaabi nin oday oo qaali ah yaa nagala soo bilaabay safarta markaa ka dambe waxaa jira nin mheshimiwa waare la dhaho markaasaan ku wareejinayna insha allah karibu jeeman salaamu calaykum maasha allah waad mahadsantihiin boqolkiiba boqol waad mahadsantihiin waxaan filayaa bulshada meeshan iskugu imaatay inta badan inay garanayso xubno waaweyn baan xambaarsanahay xubnooyinka magaranaysaa xarooyinka waan xambaarsanahay kuwa magaranaysaa dowladda waan xambaarsanahay mas-uuliyiinta hadda socotana hoggaan baan u ahay insha allahu tacaala waxa aan sheegayno waa wax dhab ah balamahana sida ay taana naga soo baxaynaa wixii aan sheegno waan ka dhabaynaynaa insha allahu tacaala annaga dowladda soo socota waa annaga insha allahu tacaala waad la socotaan sistamkii siyaasadu aad baad uga socotaan insha allahu tacaala qaybo fara badan baan matalaynaa insha allahu tacaala sistam keliya uma soconno waxaan u soconaa soomaali weyn inaan wax u qabanaan u soconnaa insha allahu tacaala waad la socotaan xaaladuhu siday yihiin insha allahu tacaala anugu hadal badan kuma dheeraanayo waana magacyo badnahay insha allahu tacaala magacan oo naamaystaan idin sheegaya midka cali cawlihan iyo midkan jeemanka iyo xaggii marka la iska dhigo magacan international oo keligaygaan leeyahay magacaasi waa cali duumaal meesha fursaddan waxaan kaga faa'iidaysanayaa in badanoo waxaa jirtaa magacayga maqashay laakiin aan aqoon ii lahayn waa kan dumaal insha allahu tacaala barasho an waxaan ku noolahay magaalada xajar dheer waxaan ku noolahay ifo waxaan ku noolahay halkan hadda aan ka hadlayo insha allahu tacaala waan idin matelayaa dhammaantiin waa idin matelayaa la sheegana insha allahu tacaala intaasaan ku soo gaarinayaa igu kalsoonaada ballanta la qaadayo waa ballan dhab ah kulinaya insha tacaala haddii qaxooti uu yahay iyo haddii waaniijo yihiin dhammaan ballanta aan qaadno waan ka dhabaynaynaa waana suurtagaynaa insha allahu tacaala wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu asalaamu calaykum soomaalida maanta maxaan u malaynayaa faarax duur faarax inaan soo dhaweyno aan taagannahay haddii eegno in la xisaabtamay oo wixiina anfacaya aan ku xisaabtamay
oo maanta faarax aan dooranaa go'aan ku gaarnay waan ogsoonnahay meeshan wixii ka jira abaar baa dadkan ku dhufatay kii deegaan ay xoolo male kii quxutayna raashin male maamul mideeya khibrad u leh bulshada isku noolaha ee isku qabta cadaalad u sameeya haddaan xisaab maxbuu noqday ma garan faarax joo baan leenahay faarax joo baan leenahay faarax joo deegaanka xoolo male abaar baa ku dhufatay xoolihii ka dhammaysay dadka meesha isugu yimid dhammaantiin waa idin salaamay magacaygu waa bulaale cabdi faarax reer dhagaxley meeshaa taagana way garanay maanta saafilayo anna in badan baan garanayaa waxa la isugu yimidna waxaa la yidhi ninbaa maamahada wuxuu yidhi dadku waa ismaal yaqaana badidaan bataan iyo xulaale waxaan maanta isugu nimid waa faarax macallin arrimihiisaan isugu nimid insha allahu bilkariim dadku waa kala doorka faarax macallin baa iska leh dadku waa kala waqtiga faarax macallin baa iska leh dadku waa kala taymka faarax macallin baa iska leh waqtigaana taaganaada waqtiga faarax macallin sababo badan awgood waa sababaynayaa waxaan ku sababaynayaa qofku baahida bulshada u matalaya hadduu yaqaan waqti baa la siiya hadduu geesi yaana waqti baa la siiyaa hadduu waxgarad yaana waqti baa la siiyaa hadduu cilmi leeyaana waqti baa la siiyaa haddii wixii lagu heshiiya ay ka fulayaanna waqti baa la siiyaa intaas kale waxaan aaminsanahay faarax inuu ku sifaysan yahaan filayaa warintaa mayla qabtaa bulshada mayla qabtaa faarax soo dhaweydana waqtigiisa intaasaan oran lahaa dad badanna waqtiga inay ku ciyaara ma rabo marka waxaa ka dabanaynaa qaxootiga asagaa meeshan dejiyey meesha faarax gawaana qaxootiga ninka bilaabadiisa asagu ahaa haddana ninka qatimaayo asaga waxaan ka codsanaynaa magaciisa allaha raajiyo mid diinta dadka maalin walbo qabanayso waxaan u sheegaynaa xildhibaanka faarax gawaana askartan dadka iska caruursanayso inuu wax ka qabto taasaa u dan leeyahay ani wax kale maanta uma telaysi arrimahaasaa ka rabaa magaciisa alla hagaajiyo diinkan dadkaa ku hogaamiyo asalaamu calaykum waraxmatullahi انت مزاي كمشغول مزاي كقصيه هاي مركله هاي مركله هاي صعبيه ده تبغى تمشي صعبيه وانا غفر حسين الايه اللي غفر حيو زي فارح معلمات مالي ورثه انت جبتين تكاك جبتين فاجري مدي فاجري مساكيتي سومالي صابوه ما تمويل ليسين مويل ليسين مرقاوه لي جماعة وماسنتي قربكين إلهي هقلو في الله قولي الذين يا ماها حبل طوري ماها خير ماها وعدك هويك مالك الذين يكوراها هويك هذا ما مدع الله هساقته وضيك لنا عايزكو اللي حيسو سوحي الذين توقها سوك الله له كورها أنا فارح كب الله له فارح معلم مركة أولدي سنين مريض جامع نظيف مركو طوقلو ماشا الهدي قليل قبل هنا بريس أنكو بدلنا بريس ماشا هذا قليل بريسك شوف اسمه نظيف وحاكو حقا انك الله وده عبدول حاجي عبدول قاعد يسي تسع عبدول
عبدين 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 هذا هو سنتين هلا وصل ذكر الدوراني والقليل عبدون فارح عمر عبد الكريم وليد عبد الله عمر هذه حالة اسمع أقول لك أنا ما كفوت قررنا مقالنا هذا هو سنتين كذي برمت السلام عليكم سلام علي محمد السلام عليكم سلام علي محمد بس ان شاء الله وما حسنت هاي وما حسنت واتاي واتاي وما حسنت وما حسنت وما حسنت ديار 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 سلام علي محمد السلام عليكم وهذا هو ستجاوب عمرك وقت كثير شرفت القيمة وأنتم عايزين أبو ضغطان ما فهمتم وحاول يفارق مع المحترف ولا ما ينفعنا نويرش على الشقلات كتبوا صارنا رفعت خطوتي على السماء بوصارنا سامعكم ما فهمتم ما فهمتم معلم وصابحة 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 على سريع على صابحة وأنا أتسنتين وأنا أتسنتين العوضة يا فاق صومالي وأنا كنت ما فهمتم قبل ما شفت تاجنا ما كان له هوس بتجرين أنا قحوتها كان معي وعنيك وإحنا قبلنا وعنيك يا عينا عمال لك سارنا وعنيك تتكلم بتاسنا كبانا نقول يا مان سارنا وكبانا فراك بحلا حتى كبانا هي مسيرة كذا كذي أنا أنا الله ساعات كلام أنا جنب في قحوتها كاني بس كان بوف استحيرة من الفلسطينيين أصلا ما يصير سارنا وعنيك كذي الله حسابتهم كنا هيدا ما فهمت أنا ما تكلم ما حنا فرن السلام عليكم. ما توها الوضع ومشمفارها MCA لبداية الديانة إن شاء الله 2222 بالباهي من المكان العالي وهي سبت أنا دي برنامج فور تشيل من رسوفها حولها بيحل المكان دكتور أنا شيء بدأنا جلايرة مدخل رئيسته نهار هذا ما الله كثير قبل الله سبحانه وحياة مامه وأبو كثير معاي كده فانا ما أدري هذا ما تقول thank you very much وما سنتي عمر عبد القيسود هو كمان وقت سويستا فرا بدل نص الصفر دوا ودايا اللي بيجي دوا نص ولا لما تبكي هاي هذا ما تنكان بيجي بالمتن بيجي على الدفن بيجي على ما نص بيجي فارح ما أنا بوها دي لا هو بيقول أنت كده
أرجع حماسات كم وقت أرجع إيجاي هو اللي بقول إنتي هذا يرتي زي ما أنا فرمات وخلاص ما أنا فرمات ولا مرة هو اللي بده Okay, thank you very much. Thank you very much. وعنده وينه هو حيني سمينايو وهو عسكر دنبه وضبطي بدو تمجبته إن شاء الله ما تنبه اسمعون اللي ما دينايو وضع كفري ما كتويسي سمعنا لا عنده تنبه مكتر أنك هذا سماني تين فأنا معلي لما بقو لا ينبط بطي لا ينبط ما كلا ورتي كارلو فارع معلم هاتو صوتنا وهو البوم اللي بدل إن شاء الله نيكي تباندر وكباندي إسماعيلي نيكي تودر همي يحولينا دودي إسماعيلي نيكي سامان روينو كلهم نيكي روينو جانا وجاهي مكا فارع معلم سوى دورة إسان فارع معلم سوى دورة إسان ماد على دي هيا صعب كمان بقى صعب لا صعب مش مفارق هيا كيفنا تمشينا يا جماعة أكيد الله ما يفجيه ما يفجيه الله نسيه فارق من جتوني ده هيدي هذا الله هيدي حتى الله هذا غيره ما قدر تقول بايون ركع كون ما بقول سلام من زمان تكتب كل سلام حتى الله يلعب وري على السبع إن شاء الله ويسجل ويطير طل وقت بدن هاي سنة جعل الله آدي آدي نديد يستان مي مغشان horta ilaahay baa mahadle markay Soomaaliya soo burburtay Northeastern dadkii madaxda ahaa oo dhanba qof kasta wuxuu yidhi qaxooti Soomaaliya ma keeni karo dadkii siyaasadda iyo markaas systemka dawladda ku jiray magacayooda hadda sheegaynin dooble inta ugu tagaan Soomaalida waxay dhaheen ku noqdo wadankiina annaga sharshaare idinma soo dhaweyn karnaydeen ilaahay baa anigu haleeshii bariyada hadaan halkan hal ugu soo dhaweeyay waxa uu wanaana waxa weeyaan laba shayba markii aniga waan dareemay waa mid aad baan uga xumaaday inay meeshii kali oo hooyo ahayd oo ku tiirsaneen ay burburtay oo calanka ka taagan waa mid labaad oo haddii dadkan intii la qaado Kenyada hoose la geeyo 200 kun oo gabdha iyo caruur iyo odayaal oo tabaalaysan dad kale oo isku jinsi ay ahayn la dhaxdhigo dadka ka imaan lahaana way caddaatay markii hadaan laga faa'iideysan lahaa marxaladda marka maraya waxaan iri meeshan hal lagu haayo walaalahooda la joogaan waxay qabaan hal la qabaan meeshan ay tuwaan ugu dagaalgalna adduunkana aanu sheegna sidii wax loo qaaday dagaxlay aniga gacanteeda ku biimeeyay ilaahay ka sakow ninka gacantiisa halkan dadka soo dejiya anigu ahaa xagar dheer anigu ahaa ninka soo dejiya kaambiya coos oo muddo badan allah ilaahay 10 sano ka dambe ay tahay ninka dejiya anigu ahaa ifo xarihi baan kordhiyay
waxaan idiin sheegi shakhsiga markii intii madax laga dhigto xil loo dhiibo lagu aamino mujtamac guud inuu hoggaamiyo muddadiina ka dhammaatay halkay isfaan u dhegaysta muddadiina ka dhammaatay nin waa u baryey buu noqonayaa welina xil ka doonaya madaxtinimada 3 shayba uma dhowaan kartid haddaad u dhowaato hooxaasaytow siidaa xaqu malihid ummadda islaamka eena hallugoyn kow nin bakhayl looma dhiibo madaxtinimo laba nin aan aamin ahayn oo hantida loogu dhiibo oo dadweynaha aan maaragtay aan ammaanada sideeda u gudbin karin looma dhiibo ammaano maash maxay madaxtinimo saddex nin dadka aan simi karinna looma dhiibo may maqashaan ilaahay baa iga sarreeya aniga ilaahay hortiisa haddii aan tago intaba waxaan isleeyahay imtixaanka waad ka baasaysaa biidni illaahi ilbaari waxay laguu soo dhiibay intaad gudbisood geyso wixii jaabkaada ku jirayna aad qaaddo xoolahaada aad jabiso yaa la rabaa inaad deen raadsato sifo aad mujtamaca baahidooda u daboosho waynay soo martay wax badan aniga way soo martay ilaahayna nimco unbuu ii siiyey waanu ku sii balaalay waanu ku sii ficnaaday wax dhiboo iga imaaday ma laha 3 shay baan idiin sheegi mid waa war la wareejinhayo dhegaysta wax baan idiin sheegi warka la wareejinhayo waxaa weeyaan war marba hore la bilaabay 2011 baan u malaynayaa siyaasaddii oo soo dhowaatay anigoo mucaarad qaxootiga oo dad badan ay kaarka haystaan baa waxaa la yidhi faarax baa yidhi dadka kaarka haystayeen dhoofin alla kama dhaafo kaa asaga hawaana garan nin tolka unbuu ahaa oo u shaqaynaya DRA beentaasaytoona ninka gudbiyey buu ahaa ilaahay baana kula xisaabtamay aakhira kuwa la mid oo 10 sano hadda wax lagu soo aaminay oo ammaanadii oo dhan intaa dhulka ku soo wareegay meel alla meeshaan tagoo tuule sidii aan kaga tegay bay tahay 10 sano ka dambe dhegaystaan idin sheegay ceelka aan suray waxba looguma kornin iskuulkii aan dhisay waxba looguma kornin maxay ahayd wax ilaahay uuntay oo loo qabtay ma jirto 10 sano kadib aniga markii hore 40 milyan oo shilin baan ku bilaabay oo ay CDF-ta oo aan bilaabay iskuul inaan ka dhisa meel la dhaha deg elema ilaa iyo meel la yidhaahda Kambia Samaki oo Garbatula u jirta dhowr kilomitir kursigii waan kala qaybiyey 2 kursi bay noqotay meeshaan 40 milyan aan ku bilaabay 300 milyan bay ku bilaabeen iyaga 10 sano ka dambana markaan imaaday waxaan imaaday meesha aan kaga tagay aniga weli ay taagan tahay waxay ku tusaysaa hunguri iyo iimaan xumo ninka qabo adduunkana haddaa u dhiibta ma deeqayso war soo runtay maaha kamana muuqanayso oo meesha unba haddana jooga ilxumo unbut meeshaa la taagan yahay ninka tuugga oo musuqmaasuqa Soomaaliya ha ahaato Kenya ha ahaato Etoobiya waddan kasta ha ahaato hadduu intuu dherga dadku u dhaafay wax bay ahaan leed soo maha xaaraan way gubaysaa inuu ku sii gubanayaa ma ogin marna kuma dhergayo soo imaydan garanin marka maxay ahayd irinkaarka dadka qaaday oo la daba kacayo ilaahay baa iga sarreeya aakhirana lama weydiinaya shaqo aan ku lahaa aniga ma jirin hadda wixii ka dambeeyana waan daba kici markaan soo galana waxaan rabaa inaan maxaa dhe ninkii hataa goostay irinkaan dhibka haystay waa la ogsoon yahay oo wuxuu u yeeli waayey waxaa weeyaan markii meeshan xabis bay noqotay ayaanta anigaan meesha ka tagay waxaan ku dagaalamayay madaxweynihii hore Kibaki aan ku heshiinay inuu yidhaahdo dadkan oo dhan ha la siiyo iririnkaan qaxooti uu leeyahay meeshay doonaan waddanka ha ka tagaan meeshay doonaan ha ka degaan waxay doonaan ha ka shaqaystaan ilaahay baa iga sarreeyaa ninkii Kibaki hataa wuxuu ku fikiray madaxweynihii hore ma aha kan hadda wiilkanayto hadda 10 sano meeshaan uga haystay maaha odaygii ka horreeyay oon isla shaqaynayna aniga inuu kulli yidhaahdo Soomaalidan oo dhan ha la siiyo sharci uu dhintay marba uu dhintay asaga hadda dhow oo maxay aad u dhintay waxaan idiin sheegi UNHCR sankoodan caana ka lisay sankooda 5,000 oo galaas inay u dhisaan qaxootiga oo tacliinta kor loo qaado oo caafimaadka kor loo qaado oo biyaha kor loo qaado yaan ayaantii anigaan dhameeyey markaan meesha ku jirayna waad ogsoontihiin intaba waad haysateen soo runtay maaha ilaa aan jaamacad keenay jaamacad aan keeno Kenyatta University qaar ka mid aan keenay soo ma xasuustaan
meesha farsamada la isku barayo deegaanka iyo maxay qaxootigana waad garanaysaa wixii hadda way isku dhammaatay maalin dhaweyto aniga aan la hadlaayo la xisaabtamayey waxay iga qireen afkooda iga qireen garaamada iyo raashiinka la siiya ka kumaayo kan inta la siiya inuu kaa ka badan kana ka yari aaway raggii markaa baarlamaanka ka hadli lahaa waxaasoo dhanba meel ku xiri lahaa oo xisaabtami lahaa oo cadkiinna idiin soo gooni lahaa ma jirin anaa kuu sheegi hal shakhsi oo xiniin leh wiil iyo gabarba ha ahaadee yaa soddon maantana baarlamaanka soomaalida ku jirta weliga tiradan maanta ay yihiin ma gaarin soddon iyo dhowr baa ku jirtaa baarlamaanka laakiin soddon iyo dhowr waxay ahayd ama loo guduud oo laisku geeyey meel oo wax ilaahay intoo ka shaqaysan kara aanan jirin war soomiidaan maqlin halin yara oo tolka loogu soo talagaleen bay boobahayaan meeshay u badan yihiin rag ahaana ma jooga anigii markii hore ninka laga cadsanaya in bilow keerow baldhaha ayuu ahaa bilow keerowna isagana waa kaas waad ka garanaysaa ninka ragga ee soomaalida tolkiisa ayaa horta bixiya yaa boqmi gooyaa oo xiniyaha ka siiba soorintahay ma war soorintahay ma see lagaaga celinaya cadow haddii adiga kaadii cadowga kaa celin lahaad adiga raganimadiisa intaad u qoonsata aad boqmaha goysaan isweydinay horta xisaabtama soomaaliyeed aad u xisaabtama war soorintahay ma waxaan idiin sheegi shakhsiga markuu waxaanaan qabtay uusan odhan karin meeshanaan dejiyey tolnimadan baan hagaajiyey uusan odhan karin wuxuu ku soo noqonayaa wax la dhahaa qabiil waa inuu yidhaahdo ree hebel baan nahay kaa waa reebel aska celiya fidna waa inuu ka shaqeeyaa soomaaliya bay fidna soo baabayso ree hebel soo maha annagana dad baa bilaabay inta laakiin meel la kuma gaarayaan waxaan idiin sheegi taariikhdii aan soo marnay waad garanaysaan ninka qofkii yar umaanan garanaynin qofkii weyn uu garanayaa anigu waxaan ka shaqaynayaa oo berig horena aan ka shaqeeyey horta hadda fursad wanaagsan ayaan haysanaa maxaa dheh sharcigii aan mar hore ka soo shaqaynay annaga oo refugee act la dhah oo amendments lagu samayn lahaa ayaa hadda baarlamaanka cusub la hor keeni doonaa war may maqashaan ninkii intuu yimid yidhaahday qaxootiga kulli hala raro ha laga qaado waddanka 3 bilood baan UN-ka siinaynaa hadday ka qaadi waayeen intaan baabuur ku wada aruurna ayaan dhanka kale webiga waxaan ku tuuraynaa xuduudka waad garanaysaan soo ma kuwa aha ninka soo ruuto ma ahayn rag soomaali oo sacbatumi soo mida arag dadkaasaa lagu tilmaami karaa soomaalinimo islaamnimo oo kaniisada la geli kaas hadduu raba madaxweyne inuu noqdo ka warraba beri madaxweyne ku noqdo soo dhibkan haysta maaha laakiin de waxay odhanayaan ajiibaan kuu sheegi waa mujrim soomaha wuu soomaali lacab yahaa laakiin waa gaalkaygii wuu ku odhanaya aniga reerkayga ayaan maarta u garab leeyahay war ilaahay baan igu daarshay see soomaali ku xisaabtanto adduunka intaa laga xisaabtama waxaan idiin sheegi ma soo gelayo insha allah biidni illaahi albaari meel kastana waan kula dagaalami anugu dagaalka aan ku dagaalamaya keligayna aan ahaadee mujtamacaan u dagaalamaya xuquuqdooda maalinkii aniga lay dooranayey 29 qaxootiye iyo deegaan iskugu jiraan ayaa halkan dhadhaab korkeeda intee lagu laayay oo dowladda Kenya ku laaysay yaa meydkooda la dubo war yaa xasuustaa markii wixii ka dambeeyey mar dambe ma ii dhacday maxay ku dhacday markaan meydka soo qufay aniga waa xasuustaan soo ma oo aan adduunka dhanba inta keenay soo ma haddaan cabsan lahaa ka warran beriga ninkii mooyi ahaa oo labaxeniyoodka oo ninkii ka hor imaada kurka ka goynaya baa awoodda haysta soo ma maantana maalmaha kuma jirta soomaaliya ay dhegaysta maalmaha inta lagaa maqan yahay waa lagugu maqan yahay soomaalidu waxay moodaa 4 beri oo waxoogaa deganaasho iyo la helay oo nolosha isku yarata toosta oo dhibka laga daayay in laga maqan yahay moomadaan inta lagaa maqan yahay waa lagugu maqan yahay waa lagu tashanaya waxaan idiin sheegi anu waxaan jeclaa maanta meesha inay buuxdo odayaasha oo dhanba ay joogaan oo nin allaala ninka madaxa cad iyo ninka garcad oo dhan buu halka joogo waayo khudbaddan aan idiin sheegahayo waa khudbad la arkaa muddo dheer inaan qof kale intuu hor istaago usan idiin sheegin anigu waxaan rabaa waa koow
kaar nin repatriation loo qaadayo in maaragtay kaarkoo iyo labadoo idhin kaar baa ku jira kaarkan aan la oran karin oo la odhanayo qofkaas sheegtow khalad buu ku qaatay ha celiyo haddii kaloo ahayn ka saaro labadaas sheegtow inta kale ha dhoofaan haddii kale dan baa u geysay xabis buu ku jiraa ilaa meeshan baad xabis ku tahay inta haddaad ka tagto markaan aniga jooga inta haddaad ka tagto ood xagar reer tagto nin kula hadli kara ma jirin hadda xagar reer ma tegi kartaa adigoo qaxootiya ma tegi kartaa bal eydnimadaas sheegtow ilaahay baa idigu dhaarshay iyo dulmiga iyo idadarradaas sheegtow fiiriya aaway raggii madaxdooda doortay oo ka hadli lahaa garaamihiinna horta waad helaysaan intaan doorashada la gaarin horta ma laydin bilaabin in waxoogaa la kordhiyo token soo laydima bilaabin waa say u bilaabatay anaa idiin sheegaya dhegaysta hay-adahana way soo noqonayaan shaqadana way badani qaxooti xoog lagu rarina ma laha waa voluntary repatriation waa United Nations Charter Kenya way ratify garaysay annaga ka mid baan nahay nin aabbihii yurubka laga gooyo xoog idinku saari karo ma jiro United Nations ninka hadduu weeno Secretary General waxaa la dhahaa Guterres ayuu ahaa ninka maxay ahayd ahaa UN High Commissioner ahaa war yaa xasuustaa ormadaa ma garanaysaan ninka qaxootiga xukumi jiray waa ninka hadda UN-ka xukumo oo Isbaaniyolka ah waa gartaan soo ma ninkaan la xisaabtamaya beriga waa sankiisa caana ka lisay ninkaasu ah أنا كوانيتو لما حسابتمي كوانيتو أمر بانسينيا كون هذا ماشي جوانا دام جوانا وكله أنت على الضوضية لما راني عاكها مايا أمر بانسين ده أمر كقاضي وهنا وحاول تلابا كقاضي تلابا اللي بيكسويه هذا الناكتي هو إن نيروبي أوردن أوليز هو الأورنج اللي مركي الدرائي باللاوي أوردن كان أي حقرتي وأنا كورا جيبي جيدا وأكتورا ماشي وده كان والله سعيد حقوق دي إن مركي دم على إنا يبدو تسيسو شغال كم قبتي وين تكتي هذا نسيها ما خص عندنا إن كستو هاي دلني أنا ما له أنا خبين هذا وهذا كرتان صوما ولي لكن يدي وان هاي يدي وان هاي إيه فهمتين وهكذا اللي شيء حتى بيه بعد ويا هذا السنة اللي شيء وربطها مسماها اسكولادي aan bariga macallimiinta ka soo bixina macallimiinta way tagaan ma tahay misama waa soo celin gabigeeda oo dhanba waa soo celin kulli waa soo celin insha Allah bi idnillahi al-bari hadda nafta Allah igu sima oo aniga la doorto kulli waa soo celin waxaan idin sheegi أنا وعندي ما شبهه بدون كان برلمان كان إثيوبيا اللي تجلنا تجنادي توبتي أيدي هذا حمر المحل لا تقص ما يسوي وصومالي إثيوبيا نسوي بابين يسوي يعني كلي أنت رسول عسان ولا تجلنا مركز ما أنا ماشي وأنت بيسوي قرر يسوي صومه والله قرر يسوي صومه حق هذا كنت أنت اللي قام بقول يسرى يو صومالي أنت فاهمه فارم معلم بأولي نول وأنك مالس إنها فرتك قلنا وقرر يسوي صومه معانا بعيدا ما هيتم كان مال سيدنا فرتك يا مايدي سوف يرعون ما يهن وانا كنت ليس انا اخيرا ماشي قدام بيسوي قريسا لكن النبي يشتري ونبا كلي قبري واحد نبا ولا واحد انتي واحد وركا كل من هيك يين هذا وبابين حدودي قريسا انا حمر لو قراعي وافرتك وكنا الصومالي كلها ين حمر ما انت انت سعور بقول كل ما كان مات كان هذا وقع هذا الظلم بيكوتشرين ظلمنا لغا ما عبصدو ذلك كان لغا ما عبصدو حقنا والله هذا مركزته وانا لو ادكيستا ماشي هذا الله اسكو ايمانيا كلي هدا تاي halka taagna أنا قبيل شغل كوميدي وأنا قبيل شغل كوميدي دقيستا شيخ شريف بقرنا يسان صوما وقرب قبتي هذا كو لكن waxaan ka booday markuu Tigreed isku diiday warmay faanteen Xasan Sheekh Maxamuud saaxiib baan ahay waan ka booday hadda soo noqon doon Ilaahay baan u bariyaan hadduu fiicnaado waan la shaqeynaa hadduu fiicnaan waayna meeshaanadi baan ka wadanaa wada maqlaysaan Soomaa warwada gartaan Soomaa waxa ani farmaajo ma aqaan labada inoo kala saaxiibaday baa ahay farmaajo laakiin waxaan ku jeclaaday daraha Soomaaliyeed oo ka wada hadalnay oo dhanbu meeshi aan istusnay ayuu mariyay cadawna wadanka oo muusan loogi وحكى لكم مرة عين وحكى لكم راعي إلهي وتمنى ولا قبيل بأنا كل راعي ولا أخوان كل راعي قطرت أروق على الشيخ شريف لا أروق على مجد
asagoo la cirsanayo oo beriga maxaakiimtii meel aan u marin ma laha sababtiisa waad maqashaan soo maha ya marka horta soomaalinimada wax ka weyn soomaalinimada mise wax ka qiimo badan oo in lagu midooba u baahan waan u sheega ani markaan cawliyaanka dhex maray waxaan cawliyahanow midooba soomaalina waa walaalihiina midooba oo nin alla ninkii soomaalida ku dhex jira caloosha soo gashada madaxana saarta may maqashaan may maqlaysaan doorashadii baa hartay wadaadkii waxaa la yidhi ninka raafgaa muxuu yidhaahday masaajidka maanta wax badan baa laga sheegay laakiin mid dambay ku soo dhammaatay biri war ilaahay laga cabsaa la yidhi soo runtii maaha hadalkan wuu fara badan yahay xikmad kastana ha ahaato laakiin akhiiran maxay ku soo arursanaysaa waryaa codkaysiiya war hooy codkaysiiya haddii kale cadow baad gacan ku geli doontaan war ma i maqashaan ya ballanta taariikh 9 maxay tahay fara macallin inta shay oo idiin sheegay qaxooti oo dib u soo noqon baa idiin sheegi voluntary horta markay Soomaaliya degto oo idinka go'aan aad gaartaan oo aad iskiina u noqon rabtaan oo shidaalkii la soo saaro oo nimcadii la soo saaro oo waddanka taajir uu noqdo oo nin kasta inuu xagga nimcada meelka gala u rabo markaa umaad inta ka guuraysaan iskiina nooga guuraysaan si fiican baana idiin sagootini intaa horteed nin aabbihii yuubka laga gooyo idan qasbi kara ma jirto may maqashaan waa intaa noolahay anigii la midkahay may maqlaysaan waxaa kaloo idiin sheegayaa taasoo mid maaha war taasoo mid maaha midda kale waxaan idiin sheegay daryeelkiinna inta caafimaadkiinna biyaha iyo tacliinta intana shaqaan ka qabanaya in sha allah biidni illaahi albaari sida ugu dadgarsiyan badan ayay UN-ka ay qori doontaa macallimiin ana alla xisaabtami sankoodan caana ka lisi ballan ilaahay taa igu qabsada aniga midda kale waxaan idiin sheegi waxaan rabaa in laydin siiyo warqada markaan maalinkaan soo galo maalin labaadeeda ninka raba inuu ku soo wareega kenyada kale oo qaadan rabo baas qaadan rabo sanad ha ahaato 2 sano ha ahaato 3 sano ha ahaato oo shilin la weydiiya aniga ay qabsan midda ayada roodboogyadanaito if meeshan dhagaxley iyo dhadhaab laba dhexdooda la dhigay meel kasta oo ladigu boobayana tallaabada ka qaado waa arki doontaan askartan iska keen xirxiranayso oo eyde oo barkood ay Soomaali yihiin oo aan diin lahayn tallaabada ka qaado waa arki doontaan insha Allah ويا قط بس صوت على المياه بروح فينا بلاقي بعد ما الشوطه هذه فيها تمشي مرها وهذا بيها طبعا من العقبه اللي لقى صوما والبيها ياله وصدول كمالها وصدول كمالها ضل كياله صار ما يبين صومالي marka lacagta soo loo qaadan kara wadi fadlan Soomaa shilin dabo lacag biyo laga qaadi malaha arinta mahaan haantan iyo ceelal iyo wax kasta oo dhan waan idin soo gudbinaynaa warmay maqashaan sanad kasta waxa idin gudbtaa wax suuq Soomaa away dabdamiski UN-ka inay ka tahay away saddex bilood afar bilood markay u baatay la xisaabtan haddii labada saddex gaari oo degdegsa arki weysaan horta maaliga maradeeda hoosteed meel kuma jiro may maqashaan mise ma maqashaan hoggaanka war bali dhegaysta hoggaanka xalaasha oo rasmiga oo munaasabka ah shacabka u baahan ninka hoggaanka asaga waa halkoo shakhsiga Soomaa ummadda u baahan hoggaan ummadda ilaahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam halkoo shakhsi ah buu noo keenay isla markii ma uusan dhihin adigana nabi baa tahay 45 10 30 ku-xigeen nabi bay ku yihiin sidee shaqada kula qabtaan muusan oranin hada gartaan Soomaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam ilaahay soo diray khaatimul anbiyaa waqti kastana rasuul baa la soo diray Soomaa
ninka madaxda ilaahay baa yaa la xisaabtamayaa ninka madaxda halkaasay toogaa hoggaankiisa base lagu liibaani lagu aflixi base lagu baabi'i warmay maqashaan maqlaysaa ma jirto wax la yidhaahda ree hebel baan dooranana war ree hebel lugay iyo sarwaal qabo oo maskax qabo oo socdo ma aragteen dad la xisaabtami ma aragteen raggii qiimaha lahaa oo muslimiinta ahaa oo magaca ahaa oo asxaabta ahaa oo barkood ahaayeen maxay taabiciinta ahaayeen oo taabiciin ahaayeen meel kastay ka imaadeen الشيخ الألباني مشكين يا أبو هريرة مشكين مقرنيسة يا بخاري دكين بخاري وكين إيشيات تقاسيته وفق وكين من العرب ما ينقرشنا مهين بخاري وكين وهذا وضك اللي قلنا وعن شاء الله تاجيكستان ويا تاجيكستان هذا وضك يا وكين هالكا الشخصية هدي ويبانفعه يوما نلقى سكرا هدي اللي وايو بقول كان المرة هذا لكن أنا أنفعي كريم ما لكم نلقى سكرا صومالي وين مهما هذا بينكم مهما هذا بين وشك طيب وحالا يري دقينا يفين صماه وبقول كان لقادي المسلم على يدي البقول صماهن وكان دقينا قوسه هذا ولي ودولة هذا هو قام بها هيستان فين لو كان ما يستاهل بقول ما تقول سلسلة صلاة صومالي كنت لقى سنين كثير جن بقر هنا ورمي له الشيء كما إليه بالهمن ورمي له الشيء كما يشهد كيمن ورمي له الشيء ساعة مالون بس كده بغني يسمع الله بعدي دي هلا بدلي هواي أفكار تعيك سكرين بارك الله فيكم أدكم هالسنتين اسبتالنا يداولا وقسم إنه مالكستا proper health center proper hospital أو surgery له أو واحد كستله وتياتة له معانا مال أي لو بقول له ها كنا مفيدون لين وقصة بيو أكينا دخاتير consultants أكينا وما يمقشان أنا تاهم سنة إلا كيرو أو لو قلق أو بيوضع مركين هاي هذا حاملان نقطوه اتداري ويسو أو تياتة إلى ذلك أو معي هذا انتريت وبطلت الله تلقى ما يمقشان وحاويان adeegyaha sayta oo dhanba xisaabtan qof geli kara ayaa la xisaabtami karaa qof kaloo adiga kugu xisaabtamahay marka waynu gaaraynaa insha Allah biidni Ilaahi baay waan idin sheegay movementiga Soomaa ya nin allaale ninka doonaya inuu ka soo dambuto meel kastoo Kenyada warqad baa la siinayaa annaga hubsanayna warqadda inay tahay mid available anytime ay tahay muddada ay ku cayinan tahayna ay tahay muddo qofka ku soo gudan kara darihiisa samida maqal sida aan rabna haddii aan helnana oo qaxootiga aan bedelna agtiga aan bedelnana waxaa la siinayaa qaxootiga iririn kaar sida kaanaga Kenyaanka oo kale oo meesha doonaan ay ku marayaan oo meesha doonaan ay ku shaqaysanayaan oo bacustari ay geli karaan oo wax kasta loo ogolaan karo mareeg ii kaadi waxyar markii hadda hafiiri qaxootiga inta laga raraa soo ma وسوق قاعدين أنت كم تجان سو جرمال كي إنجليز كي أمريكا كي مالكس تم تجان أنت على شرق يلا سيرين ما حنا لو بحر اسكندنافيا اسكان بحر إنت ثلاثين عند والد جوز وهذا فهمتان سما سادو تيجي والد ديوان قلنا يا هوش هذا والد فينا يا دار معلومات تفجر إيسا بس حلو قرنا يا مجانا مالا كان كيشنا إيسا ولا كان قلب معلومات وحي فرها قحوتية فرها مالك كماندي wax kasto dhanba kimaanada waxa loo qaataa sifan jeelka looga baxa looma qaadanin waxa dhan qofka qaxooti ma ahayn markii hore way taan xal baan u heleynaa dadka hadda lagu xayiray halkoo iyo labadoo iyo aynkaas oo kale waybahooda waan fudaaminaynaa waan fudaynayna wayna tagayaan meesha doonaan u dhafan insha Allah DJ ha farha koofi DJ anigu way iga dhamaatay waan idin sheegay xagga tacliinta waxbaan ka qabanaya caafimaadka waxbaan ka qabanaya biyaha waxbaan ka qabanaya intaba caafimaadkan waa hospital
caafimaadka si fiican socdaalkana shaqo fiican baan ka qabanaya war may maqashaan ma sheekaystay oon xisaabo badan isla gaarnay ninka UN-ka markaa weynaa oo Guterres la odhan jiray may maqlaysaan waxaa laga hadlayay voluntary repatriation dadka doonayaan inay iskooda ay u dhoofaan dadka la iska afduubaya taa ma dhici doonto insha allahu ma dhici doonto kuwii la afduubayna waanu ku istaaganaa raadkooda waanu gaaraynaa meesha la geliyey haggaadhana haddii la dilayna diyadooda waa la bixin dadkii dilayna waxaa weeyaan maxkamaddaa la soo joojin may maqlaysaan waxaa la arkaa arrintan haddaa idiin sheegayo inay qariib idigu yara tahay oo tidhahdaan talla allah muu samayn karaa anaa idan tus inaan samayn karo insha allah armay maqashaan yaa fulay ilaahay ma laha fulay ma ilaahay leh alla qabe waxaa weeyaan guryihii beriga la dhisi jiray qorshe aan iskala shaqaynay ifo baanu ka bilaabnay berigii soomeen horta wixii waa la joojiyey baa lagu yidhi soo ma shaltagina waa la joojiyey maxaa dhe waxaa dowladda Kenya baa tiri hana la dhaafay qaxootiga hay-adihii baa iska tegey dowladda Kenya directive-kii beriga ay samaysay they will vacate it may maqashaan halkayga markaa saa u galna waa laga baxayaa markiiba waxaa la odhanayaa international community xarada qaxootiga waa xara qaxootiga oo rasmi ah sidii sharciga u jira adduunku baydan u haysanaysaa markay doonaan bayna tagaan wax la qasbi karana malaha mana la xirayo anigu waan idin soo dhex mari doonaa mar kale oonan maanta ahayn nin oday baa rabaa nin dhallinyaro oo garmadow baa rabaa inuu hadlo wax sheego bal soo dhawaab adiga ها meeshan waan iga dhisay insha Allah markaan soo galno wax badan baan sameynaa marxaade suuqa hata facilities inuu leeyahay baa loo baahan yahay kulley waanu fiirinaynaa waanu ku xisaabtamaynaa si cilmiyaysan ayaa loo baarayaa wixii wanaagsan oo idinku garab qabanayana waanu ku howlgalaynaa insha Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يذكرك فارح دوارة ويقاتين مقرتين. فارح وعينا صوت ويسان مقرتين. أنا يعدنا جروبك وحان تاقيرنا فارح دوارة مقرتين. مركا تاقيرين الرسمي عن أحبانا يوصل نقول فارح دوارة وقرتوا قرر وحي وبقصونت إلا تاقير فارح دوارة جودا المر ريال يون جروبك عاد تاقير سين فارحوا كل وضواكم وين جوجان ما قالتين فارح ما قالتين الله يدن ترجيه ninkii qofkii codka haysta codka harido qofkaan codka haynin ducaha nagu kaalmeeyo soo maaha ilaahay inoo baryo ma garateen anigu hal shay baan dib ugu noqonayaa hal shay baan rabaa inaad aad u maqashaan hana hadlina ay dhegaysta sheekada raqiiska oo la wareejinhayey faarax baa ka warbalukaadii haddee warbalaamasta gebigiinna sheekada raqiiska ahayd oo la wareejinayey oo ahayd faarax waa qaxodiyaa dadka ininkaarka u diiday inay dhoofaan waa idiga jaahil bixiyey baan malaynayaa waa been iyo kidbi weeyaan oo nin waxaa leey nin daad qaaday xumbo cuskay maygarta halkayga nin waa ku baryey yaa kolba wax iska qabsanaya ilan xumbo maxay kaa reebi ama adoo weli ku quusaysay xumbo kaa waxay reebi daad baaba qaaday wakhtiga markii wakhti baad haysataa alwaqtu kasayf
wakhtiga waa seef haddaad goon weyda wuu ku goynayaa muddada lagu siiya haddaad wax qaban weyday wuu ku asaga ku goynayaa waxbaa lagaa qabanayaa waa ka shaqaynayaa marka middaa iyada waa been ogaada ilaahay baa naga waxaa la yidhaahday ilaahay maragasha laakiin nin ilaahay yaqaana ku maragasha ilaahay waad garteen soo ma marna ma oranin kumana howlgelin ciidankaan maxay ahayd 10 kun oo shilin 10 kun oo shilin laga qaadayna Kenya halkaa lagu arkay dadka ka shaqeeya in loo soo daayo dadka oo la siiyana aniga faarax Allah ilaahay baa iga sarreeya baan ka mid ahaa weli qaybta ugu weyn anaa gaarsameeyey iyo nin la yidhaahdo shiidiyo hadda safiir ah waad garteen soo ma waa inay maatay laakiin dee see u dhacday ilaahay baa og dadkana way og yihiin soo miina garan been way dhammaan been hal lug waa la qabtay hasha lugta haddii la qabtana waxa u dambeeya waad garanaysaan baaraka allahu fiikum wabillahi tawfiiq waad mahadsantihiin dhagaale waa mahadsantihiin waqtiga waa dhammaade waqti dambaan idiin soo noqona insha allah maca salaam maca salaam anaga aadi meel kale abo soo noqo mar kale